qaxooti ma aadi karo 60 sanana koraan u dhaafay baasaboor ajnabi ana ma qabo Soomaali Muqdisho xaafad kamid ah intaan dago si sharaf leh oo nabad oo karaamo leh ku noolaadaan rabaa madaxweynenimada dhan xataa taas igala qiimo badan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان صاحب الصوماليات ملكة الجوكتان يسكن صعد الضوء حلو وناكسن waxaan maqli jiray nin baa yiri jalnajidkood kuma joogo hadda loo ma jarqo marka laga soo tago inuu ninkaas caano ahaa oo uu isagu isdhaliilay yani cibaado xumadiisa haddana ay ka muuqato quus waxa weeye halkaas oo kale maanta xasan maxamuud cali suuba taagan ninkaas doonaya dalka inuu ugu noolaado sida nabadda ah bal waxaan idin la wadaagayaa dhibaatada uu geystay iyo shacabka uu doonayo inuu nabadda ku noolaado sida uu galay halkan waxaan kugu soo gudbinayaa qayb ka mid ah liiska dhulalkii xasan sheekh maxamuud boobay liiska waxaa diyaariyey wariyaha weyn amiin yuusuf khasaaro aniguna si uu dukumeenti u noqdo ayaan codkayga isagoo muuqaala idiin saaraya bal haddee daawasho wanaagsan adinkuna wixii aad xusuusataan hoos noogu soo qora dhulalka xasan boobay kuwan way ka badan yihiin waayahay lambar 1 waxa weeye dhulkii carwada qaranka lambar 2 dhulkii dabdamiska lambar 3 dhulkii guryaha kalluumaysiga lambar 4 dhulkii garoonka horseed lambar 5 dhulkii garoonka jeenyo lambar 6 dhulkii garoonka waxool lambar 7 dhulkii garoonka gaadiidka lambar 8 dhulkii guryaha bankiga ee buulxubay 9 dhulalkii wasaaradda lacagta ee degmooyinka meeshan waa dhul ma ahatan waa badan yihiin malaha 10 dhulkii warshadda caanaha dhe 11 dhulkii warshadda birta 12 dhulkii warshadda sigaarka 13 dhulkii warshadda baastada 14 dhulkii garoonka madbacadda 15 dhulkii warshadda isgaarsiinta 15 dhulkii xerosheene 16 dhulkii shirkole 17 dhulkii xero guulwade 18 dhulkii xerooyinka ciidamada dhulalkii weeyaan taasoo dhulalkii xerooyinka ciidamada 19 dhulkii ciidanka badda 20 dhulkii ciidanka nabad sugidda 21 dhulkii ciidanka cirka 22 dhulkii ciidanka saraakiisha 23 dhulkii 23 markii ugu boodaha dhulkii warshadda daawada waa 23 24 uu ka booday malaha waxa weeye waa error of tip 25 waxa weeye dhulkii wasaaradda xanaanada xoolaha 26 dhulkii daaqa qaranka 27 dhulkii waaxiyaha degmooyinka 28 dhammaan MCA-yadii degmooyinka 29 dhulkii libsooma 30 dhulkii ciraaq sooma marka uu 30 qoray haddana wuxuu yiri dhulkii fidinta beeraha 31 dhulkii warlaaliska 32 dhulkii horumarinta xeebaha 33 dhulkii konsuliyadda sacuudiga 34 dhulkii saciid barkhash 35 dhulkii bankiga shariif seeno 36 dhulkii kastanka canshuuraha 37 dhulkii wasaaradda batroolka 38 dhulkii jaamacadda ummadda 39 dhulkii Soomaali Airline 40 dhulkii qaybo ka mid ah buu yiri garoonka aadan cadde 41 dhulkii warshadda dhiiga 42 dhulkii gantaalaha 43 dhulkii wakaaladda korontada 44 dhulkii dowladda hoose 45 dhulalkii foornooyinka rootiga muqdisho 46 dhulalkii suuqyada muqdisho 47 dhulalkii wakaaladda maxaa ku qoran bacriminta 48 dhulkii suuqgeynta xoolaha 49 dhulkii kulliyadda isgaarsiinta waaye kulliyadda istaraatiijiyadda Axmed Guri 50 dhulkii kulliyadda caafimaadka
konton iyo kow dhulkii kalkaaliyaasha caafimaadka konton iyo labo dhulalkii inta badan buu yidhi safaaradaha shisheeye konton iyo saddex dhulkii tarabuunka konton iyo afar dhulkii baar tarabuunka konton iyo shan dhulkii kooxda tandar dhulkii konton iyo lixde dhulkii baar junga konton iyo toddoba dhulkii waaxda canshuuraha sigaarka konton iyo siddeed dhulalkii kaalimaha shidaalka konton iyo sagaal dhulalkii gosha iyo gendiga wasaaradda beeraha lixdan dhulkii madbacadda qaranka lixdan iyo kow dhulkii telefishinka qaranka lixdan iyo laba dhulkii caymiska qaranka lixdan iyo saddex bankigii gawaarida baarkinkii waa baarkinkii gawaarida tarabuunka dhe lixdan iyo afar dhulkii xaqsiinta ciidamada lixdan iyo shan dhulkii xaqsiinta talyaaniga lixdan iyo lix dhulkii naadiga talyaaniga laga wadaa idana lixdan iyo toddoba dhulkii wasaaradda biyaha lixdan iyo siddeed dhulkii wakaaladda biyaha lixdan iyo sagaal dhulkii fila baydhabo toddobaatan dhulkii wakaaladda muuska weeye toddobaatan iyo kow dhulalkii buu yidhi kala duwanaa ee naafada toddobaatan iyo laba dhulkii warshadda nacnaca toddobaatan iyo saddex dhulkii danwadaagaha waa dhulalkii danwadaagaha dhulkii danwadaaga weeyaan toddobaatan iyo afar dhulkii satellite-ka argentiin ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta toddobaatan iyo shan dhulkii wasaaradda ganacsiga toddobaatan iyo lix dhulkii wasaaradda warshadaha toddobaatan iyo toddoba dhulkii wasaaradda kalluumaysiga mashruuca uu yidhi xeebaha waayahay toddobaatan iyo siddeed dhulkii wasaaradda dalxiiska toddobaatan iyo sagaal dhulkii waxaa ku qoran garaashyada haa dowladda hoose siddeetan dhulkii dowladda hoose siddeetan iyo kow dhulkii wakaaladda gaadiidka qaranka siddeetan iyo laba dhulkii booliska fardooleyda siddeetan iyo saddex dhulkii iskuul bulisiyo siddeetan iyo afar dhulkii ciidanka asluubta siddeetan iyo shan dhulkii wakaaladda biyaha siddeetan iyo lix dhulkii filla baydhabo siddeetan iyo toddoba dhulkii waxbarashada dadka waaweyn siddeetan iyo siddeed dhulkii waxbarashada carabiga siddeetan iyo sagaal dhulkii maxaa ku qoran guddoomada waxbarashada weeyaan sagaashan dhulkii wasaaradda cadaaladda sagaashan iyo kow dhulkii maxkamadaha sagaashan iyo laba dhulalkii isbitaalada sagaashan iyo saddex dhulalkii dhulkii bankiga dhiigga dheh sagaashan iyo afar dhulkii wasaaradda arrimaha dibadda sagaashan iyo shan dhulkii iskuulka generaal daawud sagaashan iyo lix dhulkii qabuuraha generaal daawud sagaashan iyo toddoba dhulkii maxaa la dhahaa dukaamada dukaamada badbaadada qaranka sagaashan iyo siddeed dhulkii safaaradda ruushka sagaashan iyo sagaal dhulkii cunta karinta hotel talex sagaashan iyo sagaal soo maaha mar labaadoo sagaashan iyo sagaal qoray wuxuuna yidhi dhulkii wasaaradda howlaha guud boqol dhulkii agoonta booliska boqol iyo kow dhulalkii xanaanada carruurta boqol iyo labo dhulkii qaybo ka mida huudi masjidka isbahaysiga boqol iyo saddex dhulkii baarkinka ceelgaab boqol iyo afar dhulkii iskaashatooyinka boqol iyo shan dhulkii xabsiga dhexe boqol iyo lix dhulkii qaybo ka mid ah dekadda boqol iyo toddobo dhulkii qaybo ka mid ah afisyooni boqol iyo siddeed dhulkii wakaaladda qaxootiga qaranka boqol iyo sagaal dhulkii boqol iyo sagaal maxay tahay markaa boqol iyo sagaal waxaa weeye dhulkii caymiska shaqaalaha boqol iyo toban dhulkii qaybo ka mid ah wuri wasaaradda gaashaandhigga boqol kow iyo toban dhulkii mashruuca gosha iyo gediga iyada in lagu soo celiyay baan u malayn dhulkii boqol laba iyo toban waxaa dhulkii suuqyada xaafadaha maxaa la yihahdaa suuqyada xaafadaha muqdisho waayahay intaas inta uu iloobay oo uusan qorin baa ka mida suuqi siinaay baa ka mida waxyaabaha aan tabsanahay waxaa sidoo kale ka mid ah hoteeladii jubba iyo curuba iyo shabeelle
وحوي انتني هذا ليسوا بقول لبي طبعا أو ملها قار لبا جور كسر عليه لكن دولال كله آت وتربضن أياد دمال انت أصور دولا نينك بوي dad shacabana ka barakiciyay baa wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa xamar inaan ugu noolaado si nabad ah weliba haddana kaaga darane wuu ololeynayaa kooxdiisa magaalada dhex maraysa waxay leeyihiin JSP doorta oo JSP maxaa lagu doortaa ma inay dadka iibsataa haddana wax kaloo haray ma jiraan wallaahi haddaan si u fiiriyana waxaan leeyahay odagu mar uu saxan yahay sababtoo ah shalayba isagoo sidaas wuxuu boobaya sida ari beer lagu daayay dhab siinaya inta la qabtaa qoolka lagu celiyo waxaanu markay soo baxsadaan qoolka lagu celiyaa qoolka markii lagu celiyo yaa ka soo furay isla inaga ka soo furnay oo markale dib u dooranay oo weliba noomu qarin wuxuu yiri qabeelinkeeda dhamaystira oo ruuxi aan boobay dholalkii maxuu haytay aan xaraashay baan dhamaystirayay doorta waan dooranay marka ma khaldana mararka qaarkood dhinacaas dankeego waxaan isleeyahay wuu saxayaa sababtoo ah meeshan dad fiyoobi joogi shacabka oo anagu aan ka mid nahana wax eeda ma leh ee dadku ay dooranayaan xildhibaanada u noqonayeen nasiibka u yeeshay inay meeshaas tagaan baa dad xun ah ummadda inta xumayd markay u soo hormarto waxa weeye waxaasaa dhacaya kaasaa la dooranaya waxaan leeyahay xasano meelaad joogto meeshan kuma taallo meel muxuu ahaytay aad soo sharaxdo kuma taallo adigu ma xishoonaysid laakiin ugu dambayn war qof caraysan intuu maarata ku dhibaatayn lahaa waxba ay sharxeen oo iska tagaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay intaas ku quus qaata oo Ilaahay uga baqa dalkiina oo hadda wixii ka dambeeyay ka fikira adinka in la idin biicin hada wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh